kulanti wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeennii qubanaha VOA. barnaamijkeena qubanaha oo toddobaadkan idinla socodsiinayaan aniga waa Sahre Cidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan. qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa gabadh Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xalimo Aadan oo xijaabka dharka ku xayeysiisa iyadoo wacdara ka dhigtay bandhigyada dharka lagu xayeysiiyo ee magaalooyinka Milan iyo New York. waxaa kale oo aad ku arki doontaan barnaamijkeenan magaalada Muqdisho oo ay ku soo badanayaan xarumaha jiimka loo yaqaano ee lagu jimicsado taasi oo dhalinyarada wiilasha ah ay isku diyaarinayaan inay muruqyo samaystaan si ay hablaha u soo jiitaan. shirkadda Apple oo soo bandhigtay telefoonno cusub oo casri ah oo kala ah iPhone 8 iyo iPhone 10 kuwaasoo wata adeegyo ka duwan kuwii hore. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan. Xalimo Aadan oo gabadh Soomaaliyeed oo Mareykanka degan ayaa wacdara ka muujisay bandhigyada dharka lagu xayeysiiyo ee magaalooyinka Milan iyo New York iyadoo noqotay gabadhii ugu horeysay ee xijaab kaga qayb gasha xayeysiiska dharka. Xalimo waxay ku dhalatay xerada qaxootiga Kakuma waxaana Mareykanka la keenay iyadoo da'yar. waryaheena VOA-da Faith Labades ayaa sheekadan diyaarisay waxaase soo jeedinaya Xuseen Baraadan. gabdhaha dhalinyarada ah ee tartanka quruxda ee Minnesota ka qayb galay waxaa ka mid ahayd Xalimo Aadan oo ku labisnayd xijaabka. waxaan xirtaa xijaab maalin walba sidaasii darteed waxaan go'aansaday in tallaabadan cusub ee aan qaaday aan xijaabkaygana sii wato. Xalimo kuma guulaysan tartanka quruxda laakiin waxa ay ku guulaysatay inay qandaraas ka hesho mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee qurxinta iyo labiska dumarka waxayna noqonaysaa qofkii ugu horeysay ee iyadoo xijaaban arintaasi ku guulaysata. guusha gabadhan ayaa ka soo bilaabmaysa xerada qaxootiga ee Kakuma oo ahayd halkii ay ku dhalatay ka hor intii aanay iman Mareykanka. xerada Kakuma waxaa ku jiray dad kala dhalasho duwan oo Afrika ka kala yimid waxaanan wada ciyaari jirnay carruurta ila midka ah waxaan u wada dabaaldegi jirnay munaasabadaha iyaga kala duwan haddii ay noqoto Christmaska ama ciidda muslimiinta. xijaabka ayaa ah mid ay dadka Mareykanku la qabsadeen waxaana shirkadda Nike ay soo saaraysaa xijaab ciyaaraha loogu talagalay iyadoo shirkadda American Eagle ay soo saartay xijaab ay xayeysiinayso Xalimo kaasi oo toddobaad gudihii lagu dhammaystay waxaana sawirada Xalimo ay ku soo baxeen bogaga ugu horeeya ee wargeysyada caanka ah. runtii waa gabar caadi ah oo la mida gabdhaha kale ee Mareykanka. annaguna waxaanu rabnaa inaan wax ka bedelno qaabka quruxda iyo labiska ay dadku u yaqaanaan. iyaduna waa qofka ugu habboon ee muuqaalkaasi soo bandhigi karta si loo arko in Ameerika ay tahay goob dhaqanada ay isdhexgalayaan. Xalimo ayaa iyadoo u dabaaldegaysa guusheeda waxay haddana abaal u haysaa dadaalka ay qaramada midoobay ka wado xerada qaxootiga ee Kakuma waxayna ku tala jirtaa in mar ay dib ugu noqoto xeradaasi si ay carruurta qaxootiga ee halkaasi ku nool ay u tusto in ay suurtagal tahay in iyaguna maalin maalmaha ka mida ay guul gaadhaan. magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya xarumaha lagu jimicsado ee jiimka loo yaqaano waxaa dhalinyarada qaar ka go'an inay jidhkooda dhisaan halka qaar kalena ay doonayaan inay muruqyo samaystaan si ay hablaha u soo jiitaan. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. meelaha lagu sameeyo jimicsiga hadda waa mid mashquul ah waxaa qaadida biraha iyo samaynta jirdiska ku bartamaya dhalinyaro badan waa howl maalmeed ama shaqo guri oo loo soo diray. dhalinyarada qaarkood hablaha ay la wadaagaan haasaawaha ayaa ka dalba in jirkooda ay soo dhisaan sidoo fiooda u sheegay Cabdiraxmaan Ciise. sidoo kale waxay u kalafay in gabdhaha ay jecleen nin calool loo jecel yihiin oo six pack leh. gabdhuhu hadda ma xiiseeyaan ragga cayilan waxayna isha ku hayaan ragga leh six pack. Cabdullaahi Xasan ayaa u sheegay VOA in hablaha Soomaaliyeed ku wada gurdoonka hadda isha ku hayaan aktarada jirkooda dhisa taasina ay ku dabaqaan dhalinyarada xiriirka uu kala dhaxeeyo. jiimka horta body building waaye jirkooda dhisa dhalinyarada badanaa qof waxa ku kalifo hablihii Soomaaliyeed oo badankood dhahayaan wiil dhisan ama jirkiisu dhisan yahay israacsan arabna aan ahaan oo kale ta fikradda dhalinyarada oo ku raacsanahay
in la isdhiso jirka la dhiso dad badan way jiraan aktarada ugu deysto dad badan dunida dadka la socdo kale xataa anagi ma aha oo dhalinyarada kaliya isma dhisto waxaa is dhiso odayaashii bashiir cabdiwaaxid aadan 5 sano ugu dambeysay wuxuu xooga saaray qaab dhismeedka jirkiisa waana tababaro jim wallahi ciyaaraan waxaa ku soo biiray horta balwadkay waa jiray ilaa yaraanteeda ilaa deertaan kadibna waxaan la soo kulmay dhalinyaro badan oo jim qaadayso saas awgeedna waxaa igu dhaliyay xifaaltan jim hadeertaana waxaa ku faraxsanahay inaan jimkan macallin ka ahay oo ardayna training siinayo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeedna aan soo dhisayo bashiir aadan wuxuu si gaar ah xooga u saaraa qaab dhismeedka murqaha waana mid uu suura gelisay inuu ka qayb galo lagdanka gacanta oo dhawaan uu qabto Muqdisho waxaa maanta ku hamweynahay ama guuliyaa inaan joogo final waxaa ka soo raayay 3 degmo kala ah wadajir Darkiinley iyo Kaxshiqal haddana waxaan rajeynayaa inaan guuleysto degmada igu aadan insha Allah inaan guuleysto ma ahan oo kaliya wiilasha ee waxaa yara door firfircoon ku leh hablo badan oo iyana isxaateeya xilligan Sameera Xuseen Ducaale waa tababare dhismaha jirka hablaha haddaba maxaa gabdhaha keena goobaha jiimka والله بعد حنتي قبلها أن كل شيء كيست أو قل أن كقلنا وندحرني ما ضربت أنا في أو إيك شيء والله شيء هذا والله شيء ويا مدة كلية أو مقالة تعالو أو قرصونين بشيء مدة جارك وأنا هاي نيا قبلها وإيك العرّة نديك له وحاجرة وحلا ده أتريشي أتورا حمر كجنهم مركب فيلمات هندية ها فيلمات هندية بان كنت حنهاي فيلمات أمريكا كبا كنت حنهاي هي سياش با كنت حنهاي مركب وحول بوحي مقال أهانو أركت بدون نساء واسكت أحد نساء مركب ويل كدات كنت رادنية ونين دير أو حن ربا 6 باك أو جاكديسو كوسمان أصلاً نوع كلها أتريشة ماشى أو نكاس لعيار وسوميكت marka ninkaad adiga u shul qaatay aniga maxay gartaa marka gabadhii way ku qasbantahay toori raadinayso inaad tirishada iska dhigto suuqa caashaqa maalmihii dambe waxaa mashquuliya su'aalo isweydiinayaan lamaalayaasha xiriirka jacayl uu ka dhaxeeyo wiilashu kal hore waxay gabdhaha weydiiyaan sidaad ku tahay cunno karinta hadda sahabluhu waxay wiilasha weydiinayaan ma tahay mid leh six pack Cabdulqaadir Okay VOA Muqdisho dalka Sacuudiga waxaa dhawaan si nabadgelyo ugu soo gabagabay gudashadii xajka ee sanadkan oo ka qayb galeen ku dhawaad 2 milyan oo muslimiin oo dunida ka kala yimid haddaba dadka sanadkan xajka gutay waxaa kamid ah Muqbil Cabdiraxmaan Yebrow oo VOA-da ka tirsan Muqbil ku soo dhaw barnaamijka qubanaha VOA mahadsanid maxamed bal marka hore waxaad sawiriga siisaa safarkaagii iyo sidaad ku tagtay dalka Sacuudi Arabiya alxamdulillah anaka aan afarteen aniga hooyo walaalkaygii walaashay asraacnay inta group waxa raacnay group oo la dhaho Salaama ma sha Allah Sheikh Food iyo groupkaas zaid ay caawineen inta waxa ka baxnay Dallas Airport sabtiga 26 August ka baxnay waxa tagnay Jeddah 14 saac ahayd diyaaradda xagaas marka gaarnay Jeddah 2 saac amal inuu qaato bas inaan Makka ku aadno soo cumreysanay kaas maalinta ugu koowaad ahayd ilaa 2 maalin kadib bilaabnay xajka dhan marka dabcan dad tiro 2 milyan ku dhow ayaa tagtay baa la yiri xilliga sanadka marka la fiiriyo weatherka ama ba cimiladu siday ahayd marka loo fiiriyo xilliga samarka oo liir aad looga qayliyo weatherka wallahi waxay ahayd waxaan weligay arkin camal weatherka anaka meesha Virginia joognaa ka complain garanaan yar mar qaarkood laakiin weatherkaas camal waxa waaye zaid ay dhibta wallahi waan gartaa waxaad iga warantaa sanadii hore waxa jiri jiray dadku inay isjiiraan ama isbuurtaan shilal baa dhici jiray sanadkan sidoo xaalku ahaa markaad fiirisid sida loo dhisay ama loo qaabeeyay gaar ahaan meesha jamaraadka la yiraahdo dhagaxaanta lagu tuuro shaydaanka alxamdulillah jamaraadka hadda waxay suubiyeen one way traffic amal ay ka dhigeen sidii markii hore labo two way ahaa jirtay sidaas soo rimin jiray markaas qofku ugu xoog badan meeshooda gaari karo maaha alxamdulillah hadda one way exit ay leedahay si sahlan u suubiyeen marka la kala badbaadaya dadkii soo baxay iyo kuwii galay waan gartay waxaad ku dhalatay dalka Mareykanka in badan Afrika iyo dunida muslimka maadan tagin waxa laga yaabaa inaad meelaha talaakin wadamada islaamka iyo maadan tagin oo sawirka maad haysan xajka wuxuu yahay iyo bal talada aad siin lahayd qof dhalinyaro ah meeshu doonaa jooga Soomaaliya jooga ama qurbaha jooga maxay tahay waxa dhila dhalinyarada lacagta ay haysadaan diyaarsan yihiin ay ka soo go'do inay aadaan xajka insha Allah intay yar yihiin asii aadaan basahalno laakiin beautiful experience ay hada alxamdulillah waan gartay soo ka soo go'in qofkana oo tusaale ahaan
hooyadii ama waalidkii raacay qof aabiyo kale way dhibsan karaan dhalinyarada laakiin adinta ka soo go'da laakiin alxamdulillah hadi wax dhibsanay ma aragtay waxa arki group dhibsanaya waa jiraan meel kasto laakiin alxamdulillah anaka groupka anaka la soconay caalamo fiican xataa oo sheekh umal iyo sheekh mustafa iyo sheekh dirar groupkeena ku jiraan oo lectureyaal dhiibayeen maalinka marka culimo way bad ku soo aragtay meesha alxamdulillah aad baad mahadsantahay muqbil aad ku soo boqotay studio qubanaha VOA mahadsanid maxamed kaasi daawadayaal wuxuu ahaa muqbil cabdiraxmaan yabarow oo ka tirsan VOA-da kana mid ahaa dadkii sanadka ka qayb galay gudashada xajka barakaysan shirkadda Apple ayaa soo bandhigtay telefoonno casri ah oo noocoodu yahay iPhone 8 iyo iPhone 10 waxaana shirkaddu ay bandhigan cusub ku soo beegtay sanad guuradii 10aad ee ka soo wareegtay markii shirkadda Apple ay soo saartay telefoonada iPhone-ka warbixin amurahaasi ku saabsan waxa inoo haya Jacfar Kukai. It is the biggest leap forward since the original iPhone. kadib markii muddo dheer la sugayay madaxa sharikadda Apple Tim Cook ayaa shaaca ka rogay telefoonka cusub ee ay sharikadiisu soo saartay ee la yiraahdo iPhone 10 oo isagu ka samaysan dhalo ama quraarad iyo birta aan daxalaysan waxaanu ku tilmaamay tallaabadii ugu weynayd ee ay sharikaddu qaado tan iyo markii ay samaysay iPhone-kii ugu horreeyay mobilkan cusub waxa uu si gaar ah u leeyahay dabaynta ama jaajgaraynta aan xariga u baahnayn ee wireless-ka ah kaamira wax ku sawirta fallaaraha ilayska casaanka ka hooseeya ama infrared-ka waxaanu mobilka iPhone 10 leeyahay tilmaanta aqoonsiga wejiga halka markii hore la adeegsan jiray faraha si loo furo sidoo kale sharikadda Apple waxa ay meesha ka saartay batoonka home-ka ee shaashadda diyaarka ka dhiga si loo furo waxaana qofka adeegsanaya uu riixaya meel walba oo mobilka ka mida si uu furitaan ugu diyaar garoobo shaashadda mobilkan cusub ee iPhone 10 waxa ay ku dhowdahay midda iPhone 7 iyo 7 Plus inkastoo uu labadoodaba ka yar yahay waxaanu sidoo kale ku tilmaaman yahay midabo soo jiidasho leh oo loo adeegsaday samayntooda tiknoolajiyadda casriga ah taasoo sharikadaha kale ee tartanka kula jira sida Samsung ay bilaabeen inay adeegsadaan waxaa la filayaa in qiimaha mobilkan cusub ee iPhone 10 uu gaaro ilaa $1,000 waxaana iibsigiisu uu si rasmi ah u bilaaban doonaa 3 bisha November ee soo socota sidoo kale sharikadda Apple waxa ay soo saartay mobilada iPhone 8 iyo 8 Plus kuwaasoo aad ugu eg iPhone 7 laakiin kuwan cusubi waxa ay leeyihiin dhabar dhalo ka samaysan waxaana lagu dabayn karaa qaab wireless ah Apple waxa ay 10kii sano ee la soo dhaafay iibisay in ka badan 1.2 bilyan oo mobile hase yeeshee sanadkii aanu ka soo gudubnay ayuu dakhliga sharikaddu waxoogaa hoos u dhaca ku yimid kadib markii dadka ku xirani ay ka leexleexdeen iibsiga mobilka iPhone 7 kaasoo ay ku sheegeen mid aan waxba ka duwanayn kii isaga ka horreeyay ee iPhone 6 dalka Mareykanka waxaa sanadka dambe la qorsheynayaa in la sameeyo dayax gacmeedyo dadka u qaadi doona hawada sare kadib markii 2011 la joojiyay duulimaadyadii dadka hawada sare u qaadi jiray waxayna tani albaabada u furi doontaa saynis yahanada da'da yar ee dhinaca xidigiska wariyaha VOA-da Faith Lebedes ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haysa xilli dayax-gacmeedka Voyager 2 uu ku sii dhowaanaya cirka fog ee hawada ayaa dayax-gacmeed kale ee Kazani uu isaguna bilaabay inuu gaaro jawiga sare ee Saturn dadka ka shaqeeya warshadda dayax-gacmeedka lagu sameeyay ayaa soo diyaarinaya wejigii labaad ee cilmi baadhista hawada Mareykanka warshaddan waxaan maalin walba noo yaalla 23 iyo 24 hawlood oo aan gacanta ku hayno warshadda United Launch Alliance waxay dhistay gantaalada Atlas iyo Delta waxay hawada sare geeyeen xamuul iyo raabat hawada sayniska lagu fuliyo tobankii sano ee u dambeeyey warshadda United Launch Alliance waxay dhistay oo hawada u dirtay gantaalo fuliyay in ka badan 115 hawlood hadda waxaan bilownay duulimaadyada ay cirbixinadu la socdaan arrintaasi oo carrada Mareykanka aan dib ugu soo celinayno arrintani waxay albaabada u furaysaa injineerada iyo saynis yahanada da'da yar ee dhinaca xidigisku si ay u bilaabaan inay sameeyaan qalab cirbixinada geeya kana soo celiya hawada sare waa taariikh samaysmaysa xilligan waa sidii xilligii Apollo oo jiil cusub ay haystaan arrintan waxay dhiirigelinaysaa jiilka cusub si ay cilmiga hawada sare mar kale u jeclaadaan oo awoodahooda ay gaaraan si ay mustaqbalka jidka ugu xaaraan tagista hawada sare oo ganacsi ku salaysan
And we have liftoff. dhowr duulimaad oo tijaabo ayaa sanadka dambe la qorsheynayaa sida mid ay cirbixiyeenna saaran yihiin intaasina waxaanu ku joojinaynaa barnaamijkii qubanaha VOA ee toddobaadkan wixii aragtiya amaba tala ah waxaad noogu soo hagaajin kartaan emailkeena qubanaha@voanews.com intaynu mar dambe kulmi doonaan waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo